ciidamadan tababarka loo soo xiray oo tir ahaan gaarayay 387 askari oo qaarkood si gaar ah loo tababaray ayaa dowlatus ciidan ku sameeyay barxadda xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho. ciidamadu waxay soo bandhigeen hababka loo ilaaliyo madaxda qaranka qaabka askarigu isku difaaca hub la'aan sida loo fashiliyo weerarada iyo qaraxyada iyo habka loo furfuro qoryaha waliba askarta oo indhaha ka xiran ayaa furfurayay mas'uuliyiinta golayaasha dawladda iyo marti sharaf kale ayaa meel sare barxadda ah ka eegayay dowlatuska ciidanka. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa ciidanka u sheegay in muhiimadda koowaad ee dawladda Soomaaliya ay tahay sugidda ammaanka dalka taasina looga fadhiyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. sida la dareensan yahay dawladda Soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaheena Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa ahmiyadda koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad ba u ah amniga si amnigaas loo sugana waxa laga marmaan ah in loo helo ciidan asluubaysan gudan kara waajibaadkooda adkeyn kara nabadgelyada deegaankan iyo geygaba marka waxaan leenahay dawladda Imaaraadku marna ilaabi mayno caawimaadda weyn ee dhinaca nolosha iyo dhinaca amnigaba ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. waa dufcaddii afraad ee ka tirsan ciidamadan sida gaarka u tababaran oo dawladda Imaaraadka ay Soomaaliya ugu tababarto ciidamada dawladda marka loo eego guud ahaan ciidamada xoogga dalkana waxay ka mid noqonayaan ciidamada ugu tababarka wanaagsan ee xilligan. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka Home Cable, magaalada Muqdisho.